adiga iyo ninkaaga iyo xaaskaaga idinka dhaxdhacay idinka idin taala wad isdagaali kartiin wad kartay kartiin wad iscayn kartiin wad isqayaani kartiin waa isdili kartiin labadiina waa xiriirka idinka dhaxeeyay ilmahan dhaxdaas ha soo gelinina aabaha waa inuu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahayga waa idin salaamay meel walba adduunka joogtaan waa walaashii Najmi MBR halka diga daawanaysaana waa Najmi MBR channel soo dhawaada gacmo fura qalbi furan iyo saafi ah caawa waa mar kale iyo walaashii Najmi MBR iyo video kale cusub caawa waxa ka hadlaynaa waalidiinta Soomaaliyeed markay kala tagaan ilmaha caqibadaha ku imaado markay waalidka kala tagaan ayaa rabaa inaan ka hadlo waxyaabaha aadki iga yaabiyay haddaad adiga waxyaabahan oo kale aad Soomaalida kala yaabtay oo kale bal commentiga nagula wadaag laakiin aniga personally arrintan aad iyo aad baan ula yaabay waxay ila noqotay wax maartay oo mar walba markaan xasuusto ama mar walba markaan arko qof ka hadlayo oo yaaboon isdhaho what's going on dadka maxaa iskaga dhax qaldamay maxaa qaldan oo isdhaho ayaa jirto waalidka markay kala tagaan horta goormaad kala tagis ay bilaabatay in la isfuro in la kala ilaahayga waxa weynaa asagoo furiinka nacab ayuu hadana soo dejiyay muxuu u soo dejiyay waa maslaxadeena dadkan hadaysan maaragtay isdhibaateeyaan israfaadiyaan ee ma aragtaa ilaahayga waxadkeena wuxuu u soo dejiyay inay ku kala baxaan oo meeshaasi dambi iyo dhib iyo dulmi fara badan uusan ka dhalanin waa qodobka koowaad labada qof oo isla wada joogto ee wada nool way kala tagi karaan xiriir baa meeshan isku imaaday tan iyo xaabi aadan baa la kala tagayay wax maanta bilowday ma aha wax shalay bilowday ma aha habeen dharaara la kala tagaa laakiin Soomaalida waxyaabaha aan kaga yaabay waxay tahay markii labadan qof ay kala tagaan xiriirkooda wuu dhamaaday laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay oo aan aad iyo aad Soomaalida ogala yaabaa waxay tahay ilmahan meeshan ka dhashay ilaahay labadan qof dhaxdooda uu ka dhaliyay xiriirkii hooyanimo ee hooyada ilmaha ka dhaxeeyay xiriirkii ilmahan aabaha ka dhaxeeyay iyo xiriirkii ilmahan iyo hooyada ka dhaxeeyay meedi labadan qof way kala tageen waxyaabaha igu yaabka badan waxa kamid ah maalin walba aan maqalno faarax lagu baast waaye nin Soomaali way faa'iido male ilmaha lagu korsadaa wariya ilaahay yaqaan ilmahan aad leedahay waan ku korsanayaa yaa dhalay haddii se la kala tago labadiina kala tagteene ma ilmihii aabihi baa kala tagay waa waxyaabaha aan aadka ula yaabo waay qodobka labaad hooyada iyo aabaha markay kala tagaan maxay hooyada ilmaha ay iskaga dhaadhacsiisaa inay kaligeed dhashay ilmaheeda maxay uga dhigtaa hubkii ay ninkaasi ku ataagi lahayd maxay uga dhigtaa waa waxyaabaha aan aadka ula yaabay midda labaad waxay tahay ninka Soomaaliga markuu gabadhan furo muxuu ilmihii u furaa muxuu ilmihii islaamtii uu dhahaa qori iyo qiiqiisa waa la isla tuura aadka iga yaabiyay arrintan iyada ah markii aad ilmahan aad kala tagtaan uu ninkanna ilmihii uu dayacayo uu ilmihii uu ka tagayo hooyadanna ay iyadana noqonayso hooyo ilmihii aabaha ka ilaalinayso ee ilmihii aabihii uga dhigayso bahal ee ma aragtay ilmihii iska dhaadhicinaysa inay kaligeed dhashay waxyaabaha ka imaadaan rabaa marka inaan halkan idinkaga faa'iideeyo especially hooyooyinka la hadlaya ilmahan aad korinaysid oo aad waqti gelinaysid oo aad time gelinaysid oo aad ma aragtay aad intaasoo sano kaliya aad korinaysid u ogolow cunugaaga inuu maskaxiyan si fiyow inuu u koro cunugaaga u ogolow inuu cunugaada u koro maskaxiyan cunug fiyow oo personalitygiisa ay fiican tahay oo cunug ma aragtay si fiican u koro cunugaada oo maskaxda aad ka korisay isku day inaad korisid haddaad cunugaagi mar walba aad uga sheekaysid xumaatada aabihiis ama xumaatada waalidkiisa haddaad uga sheekaysid waxaad ogaataa inaadan ahayn hooyo fiican sababtoo ah waxaan aad ku daalaysid maskaxdaad ka dilaysaa bili aadanka sidiisa banaana maskaxda laga koriyaa qofka inaad physically ka korisid waxaa ka fiican inaad maskaxiyan mentally inaad u korisid ka fiican cunuga inaad maskaxiyan physically emotionally mentally cunugaada inaad ka dhistida fiican laakiin cunug aad dhahday booshaan ku daldalaya maskaxdiisii iyo calooshiisii iyo jirkiisii cuqdadan gelinaya aad dhahday adigana kuma anfacayo asagana bari bulshada kale wuxuu ku noqonayaa caqibad ما أركتاي أدقنا وحكاجي إيمانا يا دب وحصو صارسة عنق أدق وحصو صارسة عنق قلفن بتصو صارسة
cunugaaga waxaad isku daydaa inaad u korisid si cunug maskaxiyan fiyow u ogolow cunugaaga inuu koro markuu koro uu aqliyeysto uu weynaado asaga iyo aabihiis xisaabaa dhex taalo xisaabtaasuu cunugan markuu hadlayo uu u hadlayo qof fiyow oo cadkiisa dhacsan karo markuu cunugan weynaado ilaa odaygan wuu soo raadsanaa markuu soo raadsado u ogolow cunugaaga inuu asaga waraysto u yidhaahdo xaggee baad jirtay markaan korayay xaggee baad jirtay maxaa ku daaray intee baad ku maqneed ma haddaad isoo xasuusatay xaggee baad igu ogeyd ilaan aabahey baad aheede xaggee baad igu ogeyd inaan la yidhaahdo ninkan lala fariisto ee maaragtay meel la saaro u ogolow soo saar cunug karti leh caqli maskaxiyan jir aqoon diin maadi ka dhisan iska daa waxaan marka lagu furo aad ilmahan aad la gariirayso qaarkood xitaa ragyo fiican oo wanaagsan oo ilmahooda biilanayo oo ilmahooda daba socdo ay ku dirayaan waxa aad adiga iyo ninkaaga iyo xaaskaaga idinka dhaxdhacay idinka idin taala waad isdagaali kartiin waad kartay kartiin waad sacayn kartiin waad isqayaani kartiin waa isdili kartiin labadiina waa xiriirka idinka dhaxeeyay ilmahan dhaxdaas ha soo gelinina aabaha waa inuu aabanimadiisa taagnaada hooyadana waa inay hooyanimadeeda taagnaata ilmahan markaad maskaxiyan aad u korisaan ee ilmo waaweyn ay noqdaan oo fiyow ay noqdaan oo kaala arag ay noqdaan ayakaa markaas waalidka wareysanayo aabaha hadduu keligiis ilmaha soo koriyey hooyadiis backgroundkii iyo iqaabkii ay ugu tagtay iyo waxaasoo dhan asaas soo ogaanayo hooyo ilmaheeda ka tegayso way yar tahay waa 1 iyo 2 iyo 3 ma badno hadday ka tagtana dhib unbaa ka kaxeeyo that's what I believe marka ilmaha iyo waalidka wixii dhexdiina ka dhaco kala saara si aad maadi ka dhisan midna ogaada xiriirka ilmihiina iyo idinka dhexeeyna kala saara Soomaali Maxamedey walaa hooyo walaa aaba cilmahaada xiriirka kala dhexeeya aabanimo iyo islaantaan qabitaanka aad qabtid waa inaad nin Soomaaliya oo aad kala ogtahay gabaryahay ninka xiriirka kala dhexeeya qabitaanka ah iyo ilmahaaga hooyanimada kala dhaxayso waa inaad ogtahay qofkan inuu yahay ilmaha qofkii dhal aabaha ahaa adigana waa inaad ogtahay qofka inay tahay hooyada ilmaha dhashay ee tan iyo aakhira ilaahay uu idin la xisaabtamaayo awlaadan uu idin si ama kala taga ama wada jooga idin kala xisaabtamaayo markaad dhimataan waxaad barteen waxaad qabateen iyo waxaad u sameyseen aad iyo aad idin salaamaya markale iyo mar saddexaad soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu